السلام عليكم وادكم هاسنتي daawashada muuqaalkan maanta mawduuceena waxaan ugu magac darnay 5 waxyaabood oo hadii aad sameeysid dilay kalsoonidaada 5 waxyaabood oo hadii aad sameeysid ama ku kacdid dilay kalsoonidaada kow raadinta waqtiga munaasibka ah waqtiga sidiisaba waxa loo qaybiyaa 3 qaybood waa present past future waqti jooga waqti tagay iyo waqti iman doona marka ku fikir markastaba waqtiga jooga waxyaalaha lagaaga baahan yahay ee la doonayo inaad samayso waxay waqtiga adigu ka dhig mid munaasib ah laakiin ha sugin ama ha raadinin waqti ku habboon inuu yimaado laba marmarsiyo markaste inaad marmarsiyo ama wax kastoo ku yimaado inaad marmarsiyo u raadisid ama shay kaste ama qalad kastoo samaysid inaad marmarsiyo u raadisid taasina waa mid ka mid ah waxyaalaha kalsoonidaada hoos u dhigaya tastaxaad shaki badnaan wax kastoo ku yimaada ma shay kaste oo ay dadku ku wada hadlayaan ama ku wada sheekaysanayaan inaad ka shakidid taasina waxay kuu keenaysaa inaad shakhsiyadaadii ama awoodahaadii ka tanaasulid oo soo aragtid ba qof daciif ah oo waxba hayn marka ka dugtoonow inaad noqotid qof wax kasta ka shakiya afar inaad noqotid qof markastaba yes taagan ama yes boss qofka markastaba ha wax kasta ka hor yimaada haadun haya tusaale ahaan haddaan halkaa tusaale yar u soo qaato qof inaan saaxiibkaaga ayaa adigoo hawla lahaa ama imtixaan ku yaaleen ayaa waxa uu ku yiri ina mari halkaa iyo halkaa qabane taasi waxay ku keenaysaa hadaad haa tidhaahsid inay casharadaadii ama imtixaanadaadii kaa dayacmaan kaliya waxa kaaga filan inaad marmar adeegsatid ama mararka qaad inaad adeegsatid kelmadda maya oo hawlaan leeyahay saaxiib kuma raaci karo maanta waad iga raali ahaan intaasoo kaliya kaaga filan tashanaad ee kalsoonida dilaysa waxa weeyaan raali gelinta dadka oo dhan ha ku fikir inaad dadka dhammaantiid wada raali gelisid waayo dadka ilaahay muusimin markaas qof kastaaba fikir ama qaab wax u fahmaa sina waa loo raali gelin karaa laakiin ha isku day inaad waqtigaaga oo dhan ku lumisid inaad dadka qancisid waxay jecel yihiin u samaysid waayo dadku way kala duwan yihiin isku dabci maaha isku fikir maaha isku fahan maaha marka ha isku mashquulin inaad maxay dadka dhammaantood wada raali geliso dardaarankaygu waxa weeyaan nabigu siduu inoo sheegay shan horteed ka faa'iideyso shan horteed ka faa'iideyso caafimaadka ka faa'iideyso intaanad xanuunsan dhalinyaronimada ka faa'iideyso intaanad gaboobin cimriga ka faa'iideyso intaanad dhiman fursadda ka faa'iideyso intaanad mashquulin maalka ka faa'iideyso intaanad faqriyin intaas ayuu maanta mawduuceena ku egyahay haddii aad tahay markii koobaad ee channelka bandhiga history soo booqato fadlan subscribe saar notification-kana furo si ay kuu soo gaadhaan muuqaal kastoo cusub oon soo dhigno bartaydan aad iyo aad baad umahadsan tahay naga filo markaste barnaamijyo xiiso badan ama macluumaad aad iyo aad u qiimo badan